degdeg oo xiisa badan anigu sideedaba horta waxaan ku hadlaa luqada fara badan baan ku hadlaa idaacadaha adduunka dhan baan dhegaystaa midda Chinese-ka dhegaystaa shan hong kong ha bay lahayd waan turjubay arrintii ahay waa fasir baa ka soo baxay midda sharmalkana waa dhegaystaayo taara guutan taak bay tiraahdaa Soomaaliya garan waxyaabo noocaas ay sheegayeen markii la turjubay waxaas waxa ka soo baxay waliya saadaasha hawada kuwii wuxuu ka soo hormarayaa 2 asbuuc xilliga loogu talagalay ha soo hormaray wuxuu wataa bay yiraahdaan daadad dhulka goynahayo waliya dooba wardooba badda ka sii qaato banaanka sii geysta waxay yiraahdeen darbiyada lagu masaxaya Soomaaliyan garan marka waxaanu leenahay dawladda war hooy xilli xun intaad ordi lahaydeen war dadka u sii baaqo wabiyada dadka laga aqraro arintaas ha loo sii tabaabushaysto gargaarka maaraynta iyo masiibooyin war hooy waxba laga soo qayrinaya anu hadaba sheegay cidii war ku darsanaysan dawadinka والهذا دومي دقسي بدبيلي قادمبا وشغل كل يوم والله بالله شغل كل يوم بروفيسور لو قضاها كقيليو كودي لكن waxaan maqli jiray islaam baa foolatay 2 wiil ka hor xilligii loo qabtay maguugi baa haddana maraya inuu soo hormaro allah ilaahay saadaasha hawada guulbay gaar بروفيسور بان هاي بعد كلا سوريساس أنا دبل بروفيسور بان هاي حتى واكم ما جنبيك أم هذا واحد ما قسم على سما مقر له قفك العقل هو قريه كده يستعمل عربية أو جوابي أو مهما هاي ويجري وبي سنتبيل بقى قبل وإذا مع ذا في الفيلم أنا هو قريه كده يسوي نيبي وحنا يا مركا دبيلها قرآن هلا أخرستو ضدك هدي القلوب إلهي هلا يسكحره والسلام عليكم الكل ما هو قارسته قرآن كيا خواخر ورياضه ورلبدان بالكليل كبا laga baqaya guugi haduu soo hormaray waaba qayr marwaxada iyo maarta korontada ilaahay oo ariga wala idin sheego adiga xawaleedina facays qashinkan guriyaha isukiin gaargaaray sidii niba dadka raacinays war waxa la isaga daba yimi dad dambo oo biyo la raaciyo qodob baa ka soo baxay qodob sharci ah ka soo baxay islaamaha iyo odayaasha iyo wixii dhaqan xumada ku dhaqaaqi jiray dalxiisayaal baa soo socda wadankana waa la nadiifinaya isxilqaan baa loo dareeray hawsha hore maahan aniga qashinkan dadka ku dala dan baa igu jirtay ayaa la iga hor istaagin waryaada baqiilnimada iska daaya qashinka $5 baa lagu bixiyay yaa xabsiga yaada ka heesina war hadda mana banaanka u baxay duqi beledka muqdisho idaacada horteeda alla ay og meeshaas hadda ku soo arkay duqa laakiin waxaan la yaaba maxay yiraahdeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa beledka duqma hana dhalinyaro ee ka eebayo maxay duqa ku dareen wax kale u waayeen yaa hadda soo ark warde duqad moodaysa ma aha shaqada uu hayo ayaa waxa la yiraahdaa duqa magaalada oo talow aawada duqdi magaaladuna adigu waxa leediin gudoomiyaha hooyooyinka taas aan idin ogahay duqladeen ma oqol hal haado waryaada warkan idin hayaa waxba ma ogidin ra'iisul wasaarihi maanta wuxuu xariga ka jaray wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo dib u dayactir lagu sameeyay shaqo badan baa jirtooy waxaan maqlayay musuqmaasuq iyo waxa la dagaalo deyn baa la cafiyay wasaaradda shaqada shaqaalaha dayactirayo ma shaqaalay qaadanaysaa talo amiin ilaahay uu hagaaj anigu waxaan maqlahay deyntii baa la cafiyay wasaaradda shaqada shaqaalaha la furay haday ku xigto maxaa taqaan baa ku xigta maxaa taqaan dhaantakii tuma yaqaan ayada lagu shaqaalaysiinayo rusaan malaynayo insha Allah wala dhaantaada dollar ku qaadane alla yaa wax soo bara ku dhaha dhaantadu waa cilmi la barto maxay ku diiday dhaantadu suugaantay ka mid tahay waana hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ugu xiisaha badan lacag fara badan baa tiri waxa lagu qaadanayaa waxaan la soo koobi karin dalkana waxaan u maleynayaa khayraadkiisa in la soo saarayo arintu ay qarka marayso Soomaaliya iska dhaafay ajnabi shaqaalaha baa loo yeerayaa 2 bilood kadib ajnabi horta aan dhalno Ameerikaanka iyo Yurubiyaanka talow ayagu waa ajnabi ma keena dalka hadii abni ba yahay kuwaas waa kuwa loo baahan yahay iyagoo waliba luqada fara badan oo kuwa dalka jooga aan aqoon soo bartay ayay imaanayaan waana Soomaali waana la soo dhaweynayaa ma aha ajnabi waa ka diidata wariya ajnabi ay ku soo dadajin markii anaga u dambeeyo geel jiraha markuu shaqo hela ajnabi u yeeran karna saasan qabaanu aniga waxaan leeyahay deynta diinta la ka cafiyo waa in lacag dalkeena loo sameeyo dollarka bay wareereen ilma adeeryaal oo mid ii sheegay electron
xarig iyo computer meelaha la ordaysiin qolihii dadka ka aruursan jiraba maanta maxkamadda la soo taagay ma sha Allah darra mid yaro baqaal saddex 17 meelaha jira soo jeebkay kuma qaban marbaxa ku dhuftay alla uga af hay kuwi la aruuriye ma la xirxira lixsigii boodboodkiisu bato fuud kulul baa ku dhacaa askari ciidanka xooga ka tirsan bay doonayeen inay biskooladii ku qabtaan sidii dadkii shacabka ay qalqal galiyaan markaasoo xabad dhac kaga siiya deetana waa la soo aruuriyo dambigiiba way qirteen marka daarintoodana dib baa loo dhigaa la leeyahay maxkamad baa lagu qaadaya leeyahay ku qaad baga war hooykii waxa arintaas wadow waliba waa arka liido meelka loo sii socdo luuqluuq yara ku taagnaa iyo number 4 luuqluuq ku taagnaa hooy wallahi waa la arkaa war aniga far baa ii taagan kuwan aad ka hadlaysaan waa kuwe waa tuugada kuwa jeebsiibka iyo waxa la carraway ku badbaadahay kuwi burcad baarashadii wasoo ma baarashadii ragi way war kuwa hal hidii loo helay ayo kuwa ka daran baa jire tuugsiga magaaladii oo dhan saa ula tagay yaga xal ma loo helay waa loo helay dayntii Soomaaliya waa laga cafiyay lacag hor la qaadanaysa adduunka shaqo abuur baa Soomaaliya laga sameeyay khayraadka la soo saray wax tuugahu ma jirayaan waa loo helay halkaas loo helay midna tuugsiga xoog ma ahane Allah ku siyaalo ku filan dhib baba arkay wareedahaya tuugsiga iyo tuugadu labaduba baahi ma ahane waa balwad tuugada wixii balwad ka dhigtay dhaqan celin ayaa lagu sameeynaya wixii baahi u geysana shaqa la siinaya wariyaay anna war baan idin sidee wariyaashii ku sugnaa gobolada tababar anshax ah loo furay maanta gaalkacyo lagu bilaabay gaalkacyo waa laba dawladee inta labada dawladood u dhaxayso xuduudka ah laga furay oo lagu heshiin hadda war maxay tiri gabadhu waxa laga furay xuduudka labada dawladood u dhaxaysa warka goorma u dambeysay waxa u dambeysay habeenkii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xuduudkii la furay waraanti waan ka haytaa idaacadaha marka dhageysanayo koonfurta gaalkacyo iyo waqooyiga gaalkacyaan maqla marka suxufiyiinta waxa looga baahan yahay inay la jaan qaadaan shuruucdii sharciga u degsan labada dawladood waa haday yihiin North Korea South Korea wakaas oo waliba ha ku darsado waxaan arkaya mid aan shaxumo inta kala dhex istaagay aqalka cad Donald Trump uu yiri out taw war baan idin haya xaruntii waxbarashada gobolka Banaadir oo 30 sano xidhnayd ayaa maanta xariga laga jaray oo waxaan idin weydiin 30 sano haday xirnayd ama ay tiraahdaa 30 sano aan xirnaa wixii iga dambeeyay ka soo baxeen waxa la waxay barteen ka dhageystay ama ay tiraahdaa wallahi bil way ka suurtowda wareedahaya afkaydu ma go'ay waxbarashadaas ku xasuustay qodax bare iyo arrimii waxbarashada Puntland ayagu tala wax meel ma isla dhigay waryaadahe waa arintaas iyo goodaxaase waxaan arkay ardadii Soomaaliyeed ku qarwahayo markay imtixaanka diyaarinayaan goodax bare hadan ka xuroobaynaa war imtixaanka dawladda aan galno intaas bay ku hayeen markay arkayay bal arintaasna iyadana ma la xaliyo bal iiga warrama waali ma goodax bay wuxuu baranayeen mise naftooda bismillaahir rahmaanir rahiim saara loo dir ilaaj bay rabaan ilaaj waryaaya gabdha arinta aad ka hadlaysaan waa la xaliyay arintii ardada aad ka hadlayseen waa la xaliyay tii goodax iyo Puntland iyo tii kale oo gudaha imtixaanada iyo hawlihii wixii dhawaa la xaliyay hal baa laga gaaray hal meel fiican bay wax marayaan iminkana waa maxaa saxid u baahan war waxa saxid u baahan ciidamadana geesiyaasho naf toodurayaasho aanu ku hurudno in laga joojiyo wax kasta oo balwad ah ama dhibkeenaya si aanu ula tartanno ciidamada caalamka si ay ula tartamaan arrintaas aan leeyahay saxid u baahan waryaale waxa kala saxid u baahan wadooyinkan markaad marayso bajaajyadu 10 hadda isgarab dhaafayaan taas saxid u baahan waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya dan lana ma yeelayno ku filan